السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا ku xidhan kanaalkeena kobciye ku soo dhawaada muuqaal cusub oo laba qaybooda oo aynu kaga hadli doono dagaaladii ugu saameynta badnaa dunida ee ka dhacay qaaradda Aasiya. waxaa laga yaabaa inaad badankooda maqashay qaarkoodna aanad maqal balse dagaaladani waa kuwo bedelay saameyn weyn ku lahaa taariikhda qaaradda Aasiya ama dunida gebi ahaanteedba. imbaraadooriyado waaweyn ayay sababeen dhicitaankooda, kuwo kalena way soo saareen halka diimo ay ka caawiyeen faafitaankooda, kuwo kalena ay faafitaankooda istaajiyeen. ku soo dhawaada muuqaalkan oo ah qaybta koowaad oo aanu kaga hadlayno dagaaladii ugu saameynta badnaa bedelina taariikhda dunida kuwaas oo ka dhacay qaaradda Aasiya. sanadkii 331 nabi ciise hortii ciidamada laba imbaraadooriyadood oo awood badan ayaa fooda isku daray goob in yar u jirta Gagameela oo sidoo kale loo yaqaano maanta magaca Arbil oo ah magaalo ku taala waddanka Ciraaq. ciidan lagu qiyaasay 40,000 oo uu hogaaminayay boqorkii Macedonia ee Alexander oo dhanka galbeedka looga yaqaano Alexanderkii weynaa ayaa ku guda jiray duulaankii ay ku soo qaadeen imbaraadooriyadii Persia ee loo yaqaanay Akhemeniidda. si kastaba xaalku ahaadee jidka waxaa ku sugayay ciidan aad u weyn oo lagu qiyaasay 50 ilaa 100,000 oo furus ah oo hogaaminayay boqorkoodii Dariuskii saddexaad. dagaalka Gagameela ayaa natiijada ka soo baxday ahayd guul weyn oo gaadhay Alexander. ciidamada furus ayaa waayay badh ka mid ciidankoodii halka Alexander kiisu uu waayay 10 meelood oo meel. Macedoniyiinta ayaa dagaalka kadib gacanta ku dhigay hanti aad u ballaaran oo ay ka carareen ciidankii furus, taasi oo u ogolaatay inay sii wadaan duulaamo ay sii qaadaan mustaqbalka. guuldarrada ka soo gaadhay furus dagaalkan ayaa burburisay boqortooyadoodii Akhemeniidda, albaabada qaaradda Aasiya oo furtay ciidamada Alexander. kadib geeridii nabiga sallallahu alayhi wasallam muslimiintu waxay bilaabeen furashooyinkooda iyagoona dagaal ku qaaday boqortooyooyinka xilliga ugu itaalka roona oo ay ku jirtay tii Saasaaniyiinta furus oo markaasi 3 qarni soo jirtay. bishii November ee sanadkii 636 ee miilaadiga oo ku beegan taariikhda hijriyada, bishii Shacbaan ee sanadkii 14aad waxay ciidamada labada dhinac ku kulmeen goobta Qaadisiya oo hadda ku taala waddanka Ciraaq. ciidanka muslimiinta oo lagu qiyaasay 30,000 oo askari ayaa ka hortagay ciidamada furus oo lagu qiyaasay 60 ilaa 100,000 oo askari. 3 maalmood oo fooda la iskula jiray kadib waxaa guushu raacday ciidamada muslimiinta kadib markii la dilay hogaamiyihii ciidamada furus ee lagu magacaabi jiray Rustum. dagaalkan ayaa ahaa kii dhabarka ka jabiyay boqortooyadii Saasaaniyiinta furus oo inkasta oo muddo ku dhow 20 sano oo kale la dirirayeen muslimiinta haddana ma awoodin inay ka soo kabtaan jabka dagaalkani. kadib geeridii boqorkii ugu dambeeyay ee boqortooyada furus kaas oo lagu magacaabi jiray Yazdajirkii saddexaad sanadkii 653 miilaadiga kuna beegan sanadkii 31aad ee hijriyada waxa baabaaday wixii ka haray boqortooyadiisii. Persia ama dhulka hadda loo yaqaano Iran ayaa wixii markaasi laga bilaabo noqday dhul Islaam ah. kaliya 120 sano kadib geeridii nabi maxamed naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee ciidamada muslimiintu waxay ka dagaalamayeen bariga fog iyagoona la kulmay ciidamada boqortooyadii Tang ee Shiinaha. labada ciidan ayaa ku kulmay daafaha webiga Dalas oo ku yaala maanta waddanka Kyrgyzstan iyadoona ciidankii badnaa ee Shiinaha lagu baabiyey goobtaasi iyadoo loo aaneynayo sahay yaraan. ciidamada muslimiinta ee boqortooyada Cabbaasiyiintu ma sii raadcayn ciidamada Shiinaha oo hore u sii galay gudaha dhulweynaha boqortooyadii Shiinaha. si kastaba xaalku ahaadee guuldarradan ayaa hoos u dhigtay saameyntii Shiinuhu ku lahaa bartamaha Aasiya, taasi oo keentay in dadyowga dhulkani ay si aayar ah u soo galaan diinta Islaamka. sidoo kale dagaalkani ayaa lagu qabtay qaar ka mid ah ciidanka Shiinaha oo yaqaanay sida loo sameeyo waraaqaha oo markaasi kaliya laga yaqaanay waddanka Shiinaha. arrinkan ayaa keenay in muslimiinta ay soo gaadho tiknoolajiyadan cusubi oo kadibna uga sii socdaashay qaaradda Yurub. barasaabkii gobolka Qasna ee dalka Afghanistan hadda ku yaala Maxamed Mucizzuddin al-Quri ayaa go'aansaday inuu ballaariyo boqortooyadiisa. intii u dhaxaysay sanadihii 175 ilaa 190kii miilaadiga waxa uu weeraray Gujarat, sidoo kale meesha kala wareegay saldanadii Qasnawiinta, qabsaday magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Peshawar iyo Punjab. al-Quri ayaa weerar ku soo qaaday Hindiya sanadkii 191 miilaadiga, hase yeeshee waxa ka adkaaday boqorkii boqortooyada Rajput oo lagu magacaabi jiray Prithviraj, dagaal loo yaqaano kii koowaad ee goobta Taarayn. Maxamed al-Quri ayaa soo laabtay hal sano kadib sanadkii 192 isagoo hogaaminaya ciidan dhan 120,000 oo askari. inkasta oo ciidanka Hindidu uu watay tiro maroodi ah haddana dagaalka waa lagu jabiyey. Prithvirajna goobta ayuu ka cararay.
dagaalkan ayaa natiijadiisu noqotay in waqooyiga wixii la isku odhan jiray qaarad u ekaha hindiya uu ku jiro gacanta muslimiinta ilaa qabsashadii ingiriiska ee sannadkii 1858 maxamed alquuriy ayaa hadda looga aqoonsan yahay waddanka bakistaan haliyey qaran qaybta koowaad ee muuqaalkani intan ayuu ku egyahay fadlan like iyo share dheh muuqaalkan sidoo kale kanaalka ku caawi subscribe adoon hilmaamin inaad gambaleelka digniinta daartiin oo anigoo idin leeyahay ismaqal dambe xiisa leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh